wali uma caalwaayeen inay nabad ka dhexdhaliyaan Moscow iyo Kiev inkastoo dunida walaacayadeedu ay sii kordhayaan sidaas oo ay tahay waxa docda kale barbar socda dadaal nabadeed madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu socdaali doonaa Moscow iyo Kiev toddobaadka soo socda isagoo ujeedka ugu weyn ee socdaalkiisana uu xambaarsan yahay xoojinta dadaalada nabadeed ee Moscow iyo Kiev iyo in uu qayb ka qaato soo gabagabaynta colaadda labada bil ku dhow tan iyo markii ay labada dal isfarasaareen in ka badan 5 milyan oo dad rayid ah ayaa dalkooda ka qaxay markii ay saameeyeen colaadda u dhaxaysa Ruushka iyo wadankooda iyagoo nabad iyo deganaansho ka raadiyay qaar ka mid ah wadamada bariga Yurub xogta waxa intaas ku daraysaa in ka badan 2,000 inay ku geeriyoodeen tan iyo markii Ruushka uu gudaha u galay February 24-keeda dalka kan ay dariska yihiin sidaas oo kale waxa sii kordhayay walaacyada caalamka ka imaanaya ee la xidhiidha inay jiraan 100,000 oo dad rayid ah kuwaasi oo ku noolaa bariga waddanka Ukraine inay la yihiin deegaamo nabad ah tan iyo markii magaalooyinkoodu ay rasaasta iyo hubka culus ee Moscow ka yimid ay dhulka dhigtay Antonio Guterres waxa uu la kulmi doonaa madaxweyne Vladimir Putin talaadada isagoo kula kulmi doona magaalada caasimadda ah ee Moscow sidaas oo kale waxa uu martigelin doonaa wada hadal gaar ah oo la yeelan doona wasiirka amuuraha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov Guterres intaas kadib waxa uu socdaali doonaa Kiev Khamiista waxaana uu kula kulmi doonaa madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky iyo wasiirkiisa amuuraha dibadda Dmytro Kuleba socdaalka labada dal uu ku tagay Antonio Guterres waxay diradda saarayaan xal u helidda xasaradaha labada dal iyo inay joojiyaan dirirta sidaas oo kale inay gacan ka geystaan helitaanka badqabka shacabka hadda duuman sida ay tiri haweeneyda afayeenka u ah Eriko Neko taasi oo warbaahinta xog kooban ku siisay magaalada New York oo la xiriirta socdaalka iyo ujeedooyinka uu xambaarsan yahay wuxuu rajaynayaa wada hadallada kan inay soo dhamayn doonaan colaadda oo ay saacidayn doonaan nabadda xalna u noqon doonto xasaradaha in laga gudbo Antonio Guterres markii uu bilowday dagaalka waxa uu ka codsaday madaxweynaha waddanka Ruushka inuu joojiyo dagaalka inuu nabadda taageero iyo inuu badbaadiyo shacabka malaayiinta ah ee halkaasi waxyeeladu ay ka soo gaarayso Guterres sidoo kale labadan hogaamiye waxa uu u sheegi doonaa in dunida oo dhami ay ka walaacsan tahay colaadda qaramada midoobana marar badan hadafyadeedu ay ahaayeen xal u helidda colaadda iyo sidii labada dal dhexdooda ay dabcan uga shaqayn lahaayeen helitaanka nabad iyo joojinta dagaalada dadaalada diblomaasiyadeed iyo xeerarkooda uu aad u sareeyo labaduba qaramada midoobe waa ay ku bixisay Moscow iyo Kiev iyada oo ay kala hadashay xal u helidda colaadda tan